xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa munaasabad ballaadhan oo soo dhaweyn ugu sameeyay degmada Oog ee ka tirsan gobolka Saraar mid ka mid ah beelaha degmadaasi Oog oo shaaciyay inay gabi ahaanba ka baxeen xisbiga kulmiye isla markaana u diga rogteen xisbiga wadani waxaana munaasabadaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Saraar ugu horreyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay xubno ku hadlayay afka beeshani ka soo diga rogtay xisbiga kulmiye aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa xafladan qiimaha iyo qaayaha leh ay sameeyeen ana waliba anagu soo abaabulin ee ay taageerayaasha iskood go'aanka u qaatay ay ka hawlgaleen ay abaabulsheen annana aan idinkala soo qayb galay aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa marka hore Oog waxa weeye intaan waa intii oo ka dhinayd maanta Oog inteeda kale way midaysnayd intii naasaa dhilayd aad iyo aad baan idin soo dhaweynaynaa waxa timaadeen xisbi aan la kala lahayn waxa timaadeen xisbi dadku u simeeyahay waxa timaadeen xisbi ha lagu soo kala horeeyay kii maanta yimi iyo kii wax ka asaasay ay isku mid yihiin waa xaflad aan ku soo dhaweynayno beelweynta Cali Barre oo ka soo diga rogotay xisbiga kulmiye una diga rogotay xisbiga wadani waan waa tashaday go'aan buu qaatay wuxuu la arrin iyo adduun muruq iyo maal waxaanu isla garab taagnay xisbiga wadani waxaanu leenahay noo kala idinka maaranay intiina naga maqan ee wali xisbiyada kale sii u taagan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dadka iyaga soo diga rogtay ee arkay markay arkeen guuldarrada ay kala kulmeen xisbigii ay ahaayeen gartay inay ka diga rogtaan meel meesha tan ka wacan ay doontaan aad iyo aad baan iyagana ugu mahad waxaad ogtihiin xisbiga kulmiye been buu sheegaa wuxuu yidhahdaa xamar baa la qabanayaa inagu wax runa markayna wax kaleba eegin waxay nagu filan 10 milyan ee loo ururiyay dadkan masaakiinta ah ee qaxoontiga ah oo ay maanta kaambey ku bixinayaan oo ay ku kaambey garanayaan 10 milyan dadka barakacay oo dhan maanta waxay ka dhigi lahaayeen maalqabeen miyaa aragteen cid la siinayo iyo meel ay ku baxday sidii madaxtooyada loogu ururiyay waxaan si mug iyo miisaan leh u soo dhaweynayaa taageerayaasheeda xisbiga wadani ee soo diga rogtay maanta ee ka soo diga rogtay xisbigii kulmiye waxaan leeyahay hambaliyo baan leeyahay hambaliyo waxaanu maanta u ololeynaynaa oo cududda saaraynaa oo gacanta siinaynaa oo ololaha siinaynaa oo u ordaynaa oo aanaan u seexanaynin xisbiga wadani way wadaan itaal darra haysa midna waa idin sheegaya kulmiye bari uu ka soo laalaabtay darintiisii maanta intaa ugu dambeysay laas caanood wixii ka dhacay shalay waa daraad ogeydeen wixii laas caanood ka dhacay waad ogeydeen cirana gudoomiye cirra iyo waftidiisiina inta loo cayaarado oo magaaladii u soo baxday ayuu waliba seexday oo cawreyda calayto maanta wax lagu farxaa Oog oo midowday oo isku aragtiya oo dhinac wada jeeda oo aan reero iyo kala qoqob diiday inay shilimaan qaadato oo diiday in hudheelo waaweyn looga taliyo oo diiday oday gaari loo iibiyay aba loo cimaamaday inuu dadka afduubo oo codkooda halkuu isagu doonay reebelnimo ku mariyo taana yeeli mayno ugu dambeyn waxaa munaasabadaasi soo afmeeray xogayaha ololaha xisbiga wadani ee gobolka Saraar Maxamed Jaamac Ciise waxaana uu beeshani ku soo dhaweeyay xisbiga mucaaradka ee wadani ogtiin anigu inaan ahaa isuduwihii wasaaradda deegaanka ee gobolka Saraar waxaan uga xilkaygii waxaad ogtiin inaan iska casilay waxaan isii cilsilay markaan arkay bulshada gobolka Saraar guud ahaan gaar ahaan degmadooda aan ka soo jeedo gaar ahaan beeshayda Cali Barre wax qabad la'aanta miyaad garanaysaan shaqaale maanta ugu jira dawladda maanta aynu ka nahay hormuudka miyaad garanaysaan waxbarasho iyo biyo macaan oo maanta aynu haysano biyaha maanta aynu haysano waa biyihii barkadaha waxaan dareensiinayay beeshada inaan ku soo ongoolay oo aanay ku lugoyn oo aanay codda masi markaa xilka iska casilay waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa bulshada aan cidi soo abaabulin ee xafladan soo qabatay ee u soo digolatay ee garatay inay hiil iyo hoob isla kaayeen inay taagaan oo ay ku Mahad Cali Goodir Star TV Burco